السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب شرفت بدن وأنا سلام سيتين soo dhawaada mar badan in badan ba soo dhawaada hoshgal dinis kuli maanta waxaan baran doonaa hoshgal dinis marhaba dinisna waxa la hayo oo ah cashirkii saddexaad ee luqadda Turkiga ahna taxanaheeni barashada luqadda Turkiga waxaan rajeynayaa si weyn inaad uga faa'iidaysataan anna waxaan mar walba waqti geliyaa habka ugu fiican ee ugu fudud dadweynaha Soomaaliyeed ay ku fahmi karaan ku baran karaan afka Turkiga ayagoo aanan kun shilin ka bixin hadii kali waxaad ugu caawisaa subscribe like iyo comment iyo in qof walba oo jecel inuu barto luqadda Turkiga in maxaa la dhahaa u share garayso waxaan sameeyay group WhatsApp student ah oo aan ugu talgalay wixii questions iyo wixii dheeraad ah xitaa PowerPoint-yada ayagoo documenti ahaan aan u diro fahansiiyo hadda waa video waxaa inoo bilaaban doono cashirkeenii taxanaha ahaa ee ahaa barashada luqadda Turkiga copyright waa aniga cashirka saddexaad la marayaa ciwaankiisu maanta waxa weeyaan hoshgal dinis marhaba dinisna waa intaas ana edit gareeyay emailkii wixii oo aad rabtiin xiriir macnaha su'aalo aad qabtiin oo igu soo weydiin kartaan emailka mar walba waxaan ugu soo celceliyay alfabeetada wax kale maahan waxaa haddii aad luqadda Turkiga rabtid inaad barato waa in aad xifdisaa barataa qoraal ahaan akhris ahaan xasuusnaataa qalbigaagana ku haysaa alfabeetka haddii aad alfabeetka xifdiso يعني qalbigaagana ku haysid waxa ku fududaanaya inaad qoraal walba oo Turki ah akhriso kadib xifdiso ilaan kow waxa la rabaa inaad akhriso wax kadib aad xifdiso waxa halku dhig inoo ah ama halku dhig waxa inoo ah tekrar yeni bir daha Türkçe öğrenmek kolay waa tekrar yeni bir daha Türkçe öğrenmek kolay oo laga wado akhri in badan ama ku celceli in badan luqadda Turkiga way fududahay biyaha sida loo cabo inay fududahay waa dareemi kartaa markay dhulka sii marayaan sidaas oo kale si ka sii fudud ay sii fududahay haddii aad u gudo gasho ha uun eegin kasta yaroo adag waayo wax walba kugu cusub way kugu adag yihiin waayo wax xog ee kamaysan hadda waxaan rajeynayaa inaad alfabeetada ku celcelisaan dhowr mar waxaan ku soo celiyay waa arinta sabab maxaa la aan rabo inaad xifdisaan dartiisa waa very important yani aad ay muhiim u tahay waxaa la rabaa inaad xifdiso alfabeetka mar haddii aad alfabeetka xifdiso waxaan ka hubaa inaad qoraal af Turki ah akhrin karto mar haddii aad akhrin kartid waxaa kugu soo dhow inaad fahanto waxaan soo qaadanay alfabeet ayaga oo caadi u qoran taariikhdooda waxaan rabnaa maanta inaan qaadano ayagoo kalimaad daba socda kelime erayo vocabulary ayagoo kala daba socda mooyo vocabulary in badan oo aad vocabulary taqaano ama erayada aad taqaano waxaa ku fududaanaya inaad wax akhriso ama aad ku hadasho marka qaabkan aan usoo diyaariyay waxaan ku dhahay a oo arab alo akhnaya waa sida afka Soomaaliga arab alo akhnaya waa gaari ama baabuur sida u taqaanid balik alo akhnaya balik kalluun ama malay sida u taqaanid jacket waa jacket horteedan ku hor qoray jilek waa strawberry miraha gaduudan ee baxa waa daftar waxaa lahaa daftarka kitaab iyo daftar la isku qaldaa daftarku waxa weeyaan buug xasuus qorka nambarada ama maxaa lahaa buug yar oo waxa ku qorqorinaysid lahaa oo meel ku gaar ah yaalo daftar la kitaabna buug weyn lahaa elma waa tifaax fe waa mid aan ka hadlaynay photograph alo akhna yumashagada kolonilmas waa yani laguma dhawaaqayo no hiding ingiriiska saas u dhahay marka photograph alo akhrinayo photograph waa sawir photograph yumashagada kolonilmas waa laguma dhawaaqo waa la qarinayaa photograph waa sawir
ghost look aa loo akrinaa ghost look waa ookiyaal amyaaradaha indhaha. Waxaan soo sheegnay mashagada inay tahay wax qarsan oo aan lagu dhawaaqaynin gudahana ay ku jirto. Hadda meeshaan waxaa marka kuga cadaanaya iyadoo qoraal ahaan waxaa la dhahay Turkide kelime başında mushaga kullanılmaz oo laga wado Turkiga inta lagu yani inta la joogo luqadda Turkiga markii doontid xaraf iyo mushaga oo erey ka bilaabanayo. xaraf iyo mushago erey ka bilaabanayo ma arki doontid, sidaasaa loo soo gaabiyey malahan sababtoo hadda waxaan oo dhan waxay leeyihin erey leeyihin laakiin kan mushagada erey uu ka bilaabanayo mushaga ma jiro. waxaan sii wadanaynaa marka cashirkeena hastaane waa isbitaal sidaan filayo ordigan hastaana aragteen waa isbitaalka ordogan ama exdigfer. I waa ishik nal waaye. Ashka markii la dhahno waa jacayl. ishik hindi ahaan ishqi uu dhaha laakiin turkiga ashka ayuu dhahaa jacaylka, laakiin kan ishik waxa weeyaan nal waaye ama iftiin. Istanbul waa caasimada ugu ballaaran dalka Turkiga laakiin caasimada labaad waaye, laakiin ballaar ahaan ama weynaan the largest city alla maxaa la dhahaa buyuk shahir. marka caasimada ugu weyn waxa weeyaan Istanbul. Jilet waxaa la dhahaa jilet midi ama shay af leh oo wax jara jilet la dhahaa. Kitaab waa buugaagta daftarka buugaagta waaweynka caadiga waaye ama wax ku qoro ama waxa ku qoran. Limon waa liin dhanaanta ama liin bambeelmada. Meyve qudaarta waxaa la dhahaa laba nooc loo kala qaybiyaa qudaarta vegetable iyo fruits aa la kala dhahaa. Fruitsku nooc ka mid ah waxaa la dhahaa meyve waa qudaarta nooca fruitska ah. Nane waxaa u naqaana anaga reexaan aan naqaana bahal yar lagu darsado raashinka carfiyo raashinka. waxaa la dhahaa autobus ama autobus oo akhrinaysaa autobus oo akhrinaysaa autobus oo akhrinaysaa. Autobusna wax kale ma ahan waa basaska waaweyn oo shacabka yani basas waxaa jira basteejooyinka anaga VL aan isticmaalna laakiin basaska waaweyn waxaa la dhahaa autobus aa loo akhrinayaa. waa oretman shaqada kullanılmaz waa laguma dhawaaqayo oretman waa mucallim. waa isla oodi un waxaa loo akhrinayaa orange kanna waa arday midkan waa mucallim kanna waa arday. Para lacag anaga shilin Soomaali wax la leen laakiin lira wax la leeyin oo Turkish lira la baaraas laakiin waa lacag guud laakiin money camal waaye waxa rabtaa u isticmaali kartaa. waa radio waa raadiyaha caadiga la dhageysto FM-ka. saacad waa luqadda carabiga laakiin luqadda turkigana waa ku jirtaa laakiin Soomaali waxaa loo yaqaanaa goor sheegto. afka Soomaaliga saacad waxaa loo yaqaanaa goor sheegto. Shamsiye dalada roobka la iskaga celiyo daladaha laba jiro mid lagu midaysan yahay iyo mid roobka la iskaga celiyo waa jiro. television waa TV ama dhalo saa u taqaanin. Uchak waa diyaarad. waa utu feerada dharka ama wax walba oo bir noocaas camal ka samaysan utu lahaa. visa dalku gal waaye waa taqaanin. yumurta loo akhrinayo yumurta qofka yuusan iskadeedin wuxuu u kacsan karaa laba erey sida yumurta saas u kacsan karaa marka hadduu kacsado wuu ku dhawaaqi karaa yumurta adhiisa marka waa ukun ama beed dadka waxaa u yaqaan Somalilandarka. waa zaytiin waa saytuunka caadiga. meeshaasaan u gudubnay xarfaha alfabeetka eryadooda. waxaan rabnaa inaan galna marka haftaanin gulleeri wax lahayo oo ay noqotay meeshaas waa i aad ka dhigaysaa meeshaan uda aniga way iga fududaatay laakiin i waay haftaanin gulleeri alla gulleeru ma ah haftaanin gulleeri meeshaas aniga iga khaldantay qoraalkan buu siinaya marka
Aftanin Gunleri waa maalmaha isbuuca. Waxaa jiro 7 maalmood sida loo dhaho iyo wax walbo cashirkaan aan ku baran doonaa iyo waxa ay kala yihiin. Ayaga waxa maalmahooda uu ka bilowdaa bazaar, waxaa la dhahaa axad, waxaana la dhahaa suuqyada oo yaryarka ah, suuqyada oo small marketka ah la dhahaa bazaar. Dukaanka hortiisa xitaa iskaga qori kartaa bazaar. Marka axadna waa tahay laakiin hadda sharci ahaan axaday noo tahay. bazaar tesi next yalla tesidan waxa waaye maanta maalinta ku xig. Tesi waa maanta maalinta ku xig. Marka bazaar tesi waxay noqonaysaa axad maxaa ku xig isniin ay noqonaysaa. Sali talaado waaye. Jarshamba waa arbaco. Bershambe waa khamiis. Juma waa jumco ama jimco. Jumatesi waa sabti. waxaan rabnaa marka maalin maxaa lagu dhahaa turki, maanta maxaa lagu dhahaa, shalay maxaa lagu dhahaa, beri maxaa lagu dhahaa. Haddaan baran doonaa iyo subaxdii iyo duhurkii iyo galabtii iyo maqribadii iyo habeenkii, maadaama aan Aftanin Gunleri aan ku jirno maalmaha isbuuca iyo maalintiisa iyo waxa uu yacni ka kooban yahay. waxaan rabnaa marka maalin waxaa la dhahaa gun. waxaan rabnaa inaan dhahno marka maanta bugun. gun waa tana waa maalin, bugun waa maanta, dun waa shalay, yarin waa beri, sabax waa subax, sabax waa caadi, olin waa duhurka, oledin sonra ama tunaydin aad dhihi kartaa. oledin sonra waa galabti ama galab wanaagsan aad dhihi kartaa. waa tunaydin aa meesha ku jirto galab wanaagsan, laakiin oledin sonra kaligeed waa galabti. aksham maqribadii allah xilliyada maqribada. geji waa geje habeen waay, habeen allah habeenkii. okay waxaan noogu xigo turje aylar, bilaha luqadda turkiga, months of Turkish saasaa la dhahaa. bilaha luqadda turkiga, bilaha luqadda turkiga waa sida caadiga 12 bilood waaye. sanadku waxaa loo yaqaanaa 3 eray: sene, yil, yash. midkaad rabto waa qaadan kartaa laakiin waa micnahooda dhan waxa waaye sanad waaye. seni waa qaadan kartaa. yil aa loo badan yahay laakiin yilkaan aa loo badan yahay laakiin labadan er looma badan, laakiin inta badan kan waa loo badan yahay kan laakiin zaaid ma ugu aha. kan dhexda ku jiro yilka ah zaaid loogu badan yahay sanadna waaye. ayna waxa waaye bil. waxaan rabnaa marka 12 bilood inaan ka hadalno. Ocak waa Janaayo, Shubat waa Febraayo, Mart waa Maarso, Nisan waa April, Mays waa May, Haziran waa June bishan hadda aan ku jirno. Temmuz waxa weeyaan Luulyo ama July. iyo mushagada waa la qarinayaa sababtoo waxaan soo sheegnay in aysan jirin xaraf ka bilowdayo mushage. hadda kan waxaa ka horeeyo shaqala ka horeeyo oo ah. sidee loo akhrinayaa marka? shaqalka aada iyo uda la isku qabanayaa kadib inta kale la akhrinayaa marka. sidee u suurtagelaysaa? waxaa la dhahaa marka Augustus loo akhrinayaa Augustus waa Agosto ah. Eylul waa September. Ekim waa October. Kasim waa November. Aralik waa December bisha ugu dambeysa sanadka. waxaan gelaynaa turje saylar nambarada turkiga. waxaan ka bilaabaynaa 0. carabi ahaan waa 0, afka soomaaligana waa eber, ingiriiskuna waa 0 sidaan filaayo. marka waxaan rabnaa inaan baranno nambarada luqadda turkiga ilaa waxaan baran doonaa 100 sida loo dhaho. marka tusaalooyin ahaanan u dhiibi doonaa laakiin 1 ilaa 100 ma soo wada qorin. tusaale fiican idinka kusii shaqayn kartaan dhiibay. laakiin waxaan rabaa inaan ka bilaabo marka eber. ebertu waxaa la dhahaa 0 waa ku qoran tahay. beer waxaa la dhahaa beerti ma ahan oo marka tan waa number 2 waa la wadaa beer. beer waa number 2. iki waa 2. uj waa 3. dort waa 4. besh waa 5. alti waa 6. yedi waa 7. sekis inaad fahantaan rajeynayaa 8 waa qoran tahay. dokus waa 9. on waa 10. on beer aa loo akhrinayaa
tobankaa lasoo qaadanaya onta ah, kadib beer oo kana aha lasoo qaada, sifirta unbaa laga tagayaa. laakiin beer ilaa iyo dukus mar walba waa la isticmaali karaa. intaadan isticmaalin ka hor waxaad laakiin soo qaadanaysaa tirada markaas weyn ee aad joogtid. sida 20 markaad joogtid yermi beer aad dhehaysaa. 25 aad rabtaa yermi beesh. marka sidaa markaas wax u rabtid waa. laakiin tirada mar walba aad isticmaalayso waa beer ilaa iyo dukus, oo laga wada 1 ilaa 9. 11 aan maraynay on beer, 11 12 waa on iki, on uj, on dort, on beesh, on alti, on yeddi, on sekis, on dukus, yermi. waa 11 12 13 15 16 14 15 16 17 18 19 saasaa loo akrinaa. marka waa on beer, on iki, on uj, on dort, on beesh, on alti, on yeddi, on sekis, on dukus, yermi. yermi beer, yermi ik, yermi uj, yermi dort, yermi beesh, otus alo aqna. otus waa 30, otus beer, otus iki, otus uj, otus dort, otus beesh 35 kirkii 40 waay. marka tiradan waxaa usoo gaagaabiyey inta kale inaa idinka dhamaystirataan oo aad tusaale waa haystaa. sababta hadda markaan 30 sheego 31 ilaa iyo waxaad sheegaysaa waxaan ku dhaha waxaa isticmaalaysaa beer ilaa iyo dukus. mar walba waxaa isticmaalaysaa beer ilaa iyo dukus kadib waxaa ku xigi doona tirada markaas adiga aad maraysid. haddii otus dukus aad maraysid 39 waxaa ku xig kirkii 40 anaa kuu sheegayo, laakiin waa inaad adiga qorataa 41 ilaa 49. waan tusaale kusoo siiyey. 50 markaan kuu sheego 51 ilaa 59 adaa qoranaysid. 60 markaan kuu sheego 61 ilaa 69 adaa qoranaysid. 70 markaan kuu sheego 71 ilaa 79 adaa qoranaysid. laakiin aniga tusaale walba oo aan ka bixiyo ilaa 5 gaarsiiyey, 5 kale adiga dhamaystiro ama 4 kale adiga dhamaystiro. waxaan baraynaa kirkii waa 40, kirkii beer, kirkii iki, kirkii uj, kirkii doorti, kirkii beesh. dhawaaqa waxaan kuu soo sheegay ha isku dhibin. haddii mar alfabeetka aad xifdisid waxaa kuu fududaanaya inaad akhrisid, kicisid, kadib aad ku dhawaaqid. yermi hadda matalan kirkii waa caadi 40 waaye. beesh alla kirkii beesh alla marka kirkii beesh 45 waa marka. waxaa marownaa 50 oo eliyaa la dhahaa. eli beer 51, eli eki 52, eli uj, eli dort, eli beesh 55. 56 aa rabtaa eli alti aa dhihi marka. ilaa iyo waa sii wadan kartaa. 60 haddana waxa waaye altamish beer, altamish iki, altamish uj, altamish dort, altamish beesh, yetmish 70. yetmish beer, yetmish iki, yetmish uj, yetmish dort, yetmish beesh oo 75 laga wado. 60 waa 6 beer, 6 iki, 6 uj, 6 dort, 6 beer, 6 beesh, 6 alti, 6 yeddi, 6 sekis 88 sekis. dugsan waa 90, dugsan beer, dugsan iki, dugsan uj, dugsan dort. waxaa inoo socday 90. dugsan laga wadaa 90. 91 waa dugsan beer, dugsan iki, dugsan uj, dugsan dort, dugsan beesh, dugsan alti, dugsan yeddi, dugsan sekis, dugsan dukus, yus ilaa iyo boqol. tirada maanta intaanay noogu ogtahay sababtoo tilaabo malyan idinka badan qaada, laakiin waa in horta hore tilaabo aan qaadnaase. boqolkan markaad barato oo aad isdhihi karto alaylehe marka aad lacag tirinaysid ama wax kale aad tirinaysid, markay wax tiro soo gasho aad sameynaysid afka turkiga waa ku dhihi kartaa tiradaas waa guuleysatay waana baratay. marka aad heerkaas gaartaan aan rabaa marka 200 haddana inaan soo dhigo tusaalihiisa aydan tusiyo 300 400 500 ilaa iyo malyan ilaa iyo 1000 ilaa yani tiro intay gaarto inaan gaarsiino waa balan. maxaa nagu xigi doono
waxaa noogu xigi doona sidaan filayo konuşma, wada hadal, wada sheekaysi. ingiriisku wuxuu dhahaa conversation, conversazione waa talyaani, conversazione waa afka faransiiska. kani waa wada hadal waxa uu dhex marayaa Ismaaciil iyo Aisha. Aisha waxaa la dhahaa Aisha. ciwaanku waxaa la dhahaa konu. konu haddii aad aragto waa ciwaan ama topic. topiceen muxuu ku saabsan yahay marka? hoş geldiniz, merhaba, adanizne. topiceenu meeshaasuu ku saabsan yahay oo cashirkeenii saddexaad ciwaankiisu ahaa. marka ciwaankan waxaa lagu turjumaa sida tan: hoş geldiniz waa soo dhawow ama soo dhawaada. marhaba waa salaan, adanizne magacaa. waxaa sheekeysanaya marka waa basic wada hadalkan. haddii aad fahantid oo aad barato, waxaan ogahay inaad ku hadli karto afka turkiga. very important waa intaan. waxaa bilaabanayna marka wada hadalka ama wada sheekeysiga u dhexeeya Ismaaciil iyo Aisha. waxaa is arkay laba qofood oo wiil iyo gabar ah. tusaale aan kasoo qaatay magacan Ismaaciil iyo Aisha aan kasoo qaatay. qofka koowaad markuu qof arko oo turki ah, hadalka ugu horeeya isdhahan waxaa ka mid ah hoş geldiniz, merhaba. anaga camal maahan wariyay isdhahay afka isku taagaya maahan. ayaga waxa waaye waa is ixtiraamaan. ixtiraamka iyo hadalka wanaagsan uu ka mid yahay in sidaan oo kale loo hadlo. marka Ismaaciil wuxuu yiri markuu arkay hoş geldiniz uu yiri merhaba, soo dhawow, waan ku salaamay. Aisha waxay ugu jawaabtay hoş bulduk, merhaba, waan dhawahay ama waan ku faraxsanahay inaan agjoog, yani inaan ku agjoogo oo ku faraxsanahay. markaas waxay taagan tahay agtiisa. markay saas ula hadlayso macnaha agjoogaaga waa ku faraxsanahay ama waan dhawahay. midka adiga aa u fahmayso u qaado. haddii aad isdhaysid ma turjumsano oo isi keligiisa afkiisa ka turjuma, turjumaada waatana afka Soomaaliga isagoo ah geeskan kaluu saaran yahay. waan dhawahay, waan ku salaamay. ma aragtaa waa kaasa. marka waxaa la dhahayaa nasilsin. nasilsin sidee tahay? nasilsin sidee tahay waaye Ismaaciil Aisha dhayso maadaama Ismaaciil uu salaamay. Ismaaciil Allah aqrinay uu salaamay, soona dhaweeyay, iyadana salaanta ka radisay oo soo dhaweeyntana ka aqbashay. iyada marka su'aashay nasilsin sidee tahay. isma yaqaanaan, hadda isbaranayaan. Ismaaciil wuxuu yiri tashakkur ederim. tashakkur ederim. tashakkur Allah aqrinay. midda ko marka aad rabtid inaad kiciso she laba ka waaye. kadib sida adig markaas u kacsan karto u kacsan. laakiin sida ugu fudud ee wax loo kiciyo waxa waaye tashakkur. iyada kadib waa isku dirsanaysaa. tashakkur aadaysaa. tashakkur. tashakkur ederim macnihiisu waa mahadsanid. tashakkur ederim mahadsanid. waxaa dadka isu qaldaan marka iyiyim ee dhahan ma ahan iyiyim. hal xabaa lagu dhawaaqayaa oo waa qoraal ahaan saanay u qoran tahay, laakiin waxaa loo akhrinayaa iyim bisa loo akhrin. inta camal loo akhrina iyim aadaysaa. iyim ama waxaa muujinaysaa adigoo dhahaya camal iyim, laakiin iyim aadin. laakiin dhawaaqa iyim ma ahan, laakiin qoraalka waa iyim, dhawaaqu waa iyim. iyim waa fiicana midda iyim ama iyilik waa dhihi kartaa xitaa. haddii iyim xataa ay adag tahay iyilik waa fiicanaha waaye. tashakkur ederim mahadsanid. iyim waa fiicanahay. Ismaaciila dhahay sen nasilsin. sen adiga, nasilsin sidee tahay. sen nasilsin waxaan ka bixin doonaa horgalayaashan iyo gadaalgalayaasha senta iyo ereyga yani nasil uu ahaa. sentan sidee ku imaatay, sentan kale sidee ku imaatay. tashakkur ederim intaan gadaal iyo intaan gadaal. marka waxaasoo dhan waa grammar waaye, waa sharxi doonaa. tashakkur ederim waxa waaye mahadsanid. iyim waa fiicanahay. sen nasilsin adigana sidee tahay. waa mahadsanid waa fiicanahay. adigana sidee tahay. Aisha waxay dhahday tashakkur ederim mahadsanid. bende iyim anigana waa fiicanahay. adinne waa dhihi kartaa magaca. adinne
adinne magaca san adinne waana dhihi kartaa mujida san adinne waa dhihi kartaa kii ku fudud adinne haddii aad dhihi kartid waa dhihi kartaa waxa weeyaan magaca waa isbaranayaan waa is arkeen wuxuu yiri tashakur ederi mahadsanid bende iyim aniguna waan fiicannahay aniguna waan fiicanahay minis adinne sidee tahay san adinne sorry adinne magaca san adinne magaca waa iyadu isku mid laakiin labada mid ka rabto waa dhihi kartaa inta badanna turkigu waxaa la isticmaalaa formal iyo informal wax lahay formalku matalan nasilsin markay tahay waa formal laakiin nasilsinis markii la dhahayo waa informal sidaas oo kale la isticmaalaa waa qeexi doonaa barnaamijkaas waa barnaamij gaar ah hadduu ay beedmo si fiican aan ugu dharki doontaan luqadda turkiga waxaan kaliya idinka codsanayaa inaad iska tube aad horumarisaan subscribe like iyo comment iyo share aad dhahdaan si aad wax badan usoo geliyo oo courses ku saabsan afka turkiga insha allah waxaa la marka oo inuu maraysa magaca ismaaciil dhahaya marka benim ismaaciil maaragta waxaa si xaraka leh u dhihi kartaa benim ismaaciil anigu waxaan ahay ismaaciil adim ismaaciil magacaygu waa ismaaciil benim adim ismaaciil magacaygu waa ismaaciil waxaa kaloo dhihi kartaa ismaaciil adinne markii lagu dhaho ismaaciil waa ku ekeen kartaa adinne haddii lagu dhaho benim ismaaciil waa dhihi kartaa anigu waxaan ahay ismaaciil adinne markii lagu dhaho adim ismaaciil waxaa dhihi kartaa anigu magacaygu waa ismaaciil adinne markii lagu dhahana waa benim adim ismaaciil waa dhihi kartaa midka markaas adiga kuwa fudud qaadan kartaa intaan waxaan ku siiyay yani inaadan ku wareerin markaad aragto adim ismaaciil kaliya isdhihin benim adim ismaaciil la isoo baray inaad aragtaan rabaa adim ismaaciil benim adim ismaaciil ben ismaaciil iyo ismaaciil kaliya hadii lagu dhaho oo qof magac weydiis magaciisa la haduu ku sheego ama adim hebel uu ku dhaho ama benim adim ku dhaho inta waa isku mid waa isku magaciigu waa hebel sanin adinne adiguna magaca sanin adinne an yoris umjida sanin adinne qofka isiga la lahaysiinaa soo magac isa leh sanin adinne adiguna magaca waxa dhahday okay sanin adinne adiguna magaca Aisha waxa dhahday adim Aisha Aisha magacan waa Aisha afka Soomaaliga Aisha ala akhna laakiin turki markii joog Aisha waa okay magacan waa Aisha waa Aisha sidaan hore u sheegay adim Aisha dhahday ben Aisha Aisha benim adim Aisha mida inta waa dhihi kartaa mid ka rabti magaciigu waa Aisha baad maraysaa tanashti mushagada waa la qarinayaa sida ereygan oo kale hada loo kiciyo inta badan ereygan dad ka dhigo waa tanishti akhrinaysa ku horto tanishti marka akhrisid miza ade miza yumashagada sembri waa la qariyaa laguma dhawaaqo gaan uguma dhawaaqaysid yumashagana uguma dhawaaqaysid kulanil mas waa laguma dhawaaqo tanishti markaad akhrisid waxa akhrinaysaa miza marka waxaad try gareynaysaa inaad isku dhijin karto tanishti soo akhrisay miza soo akhrisay sidee aad isku dhijinaysaa tanishti miza memnun oldu kulanti wanaagsan tanishti miza memnun oldum kulanti wanaagsan waxaa kaloo la dhihi karaa memnun oldum kaligeed waa la dhihi karaa tanishti miza hadii ku dhigayso waa ka tagi kartaa laakiin tanishti miza waxaa loo keenay isbarasha meesha soo gashay oo hadda la isbartay tanishti miza saasay ku imaatay memnun oldum kulanti wanaagsan bende waa ku joojin kartaa also waxa uu celin kartaa yani ama ugu jawaabi kartaa memnun olduna ugu jawaabi kartaa bende kaligeed ku joojin kartaa laakiin hadalka waxa anigu aan dhahay bende memnun oldum adina sidoo kale kulanti wanaagsan kulanti wacan ama kulanti wanaagsan mida u taqaano markii intaan la marayo dadka waxa ay u dhowdahay inay ismac salaameeyaan waayo waxaan qaadanaynaa cashirkii koowaad labadan qof waxa dhaxmari doonta sheeko aad u weyn oo balaaran waxay isku arki doonaan college-ka mar kale waxay isbari doonaan isiga saaxiibadiisu baraya gabadha Aisha iyadoo wiilka maxaa la saaxiibadiisu baraya Aisha waxa la gaaray ehelka inay soo barto waxa la gaaray marka ilaa ay sheeko dheer ay noqonaysaa oo film xitaa laga sameyn karo ayaan rabaa inaan soo dhigo si aad u hadli kartaan yani waxaan rabaa inaadan wax uusan idin dhibin aad iska soo qaado gabar markaad tahay oo aad daawanaysid Aisha in adiga iska soo qaado
wiil markaa tahay daawanaysan Ismaaciil inaad adiga iska soo qaado. Markay sheekadu marayso bende memnun oldum ada sidoo kale kulanti wanaagsan markay marayso waxa ay Caaisha ay dhahday gurushmek uzeri. Gurushmek uzeri waa see you ama is aragti dambo. Is aragti dambo. Gurushmek uzeri waa is aragti dambe. Ismaaciil wuxuu yiri gurushorus sidoo kale is aragti dambo. Gule gule waa maqasheen sidaan filay inta badan heeso badan oo ku jira oo Turki ah. Gule gule waxa weeyaan ma salaamo bye nabaday sida u taqaanid. Hoshja kalin qofkii gule gule markuu ku dhaho aduna gule gule uma jawaabaysid waxa iska dhigaysaa qof luqadda yaqaan ama u dhashay oo native ah. Marka hoshja kalin adeysa adna sidoo kale ma salaamo. waxaa meeshaan noogu eg cashirkeeni saddexaad. waxaan rajeynayaa cashirka afraad inkastoo ciwaankiisu uusan hadda i diyaarsanayn laakiin waan diyaarin doonaa inaan soo dhigo. Copyright waxaa iska leh absolutely videoga cashirka iska tiyo. diyaarinta qoris iyo soo jeedinba waa Ismaaciil Maxamed Cumar. fikirkuna waa Baarlin Aweys Abdulqaadir iyo Caaisha Ismaaciil Maxamed. waxaad nala soo xiriiri kartaan ismaaciilmaxamedcumar@gmail.com. whatsapp groupka numberkan aad kasoo xiriirin kartaa waa +25 15 15 45 13 45. waa mahadsantihiin. subscribe like iyo comment inaad gambaleelka furtaan ha iloobina si aad ula socotaan mar walbo cashiradeen aan soo dhigi doono insha Allah.